Israa'iil waa awoodda sirdoonka ee adduunka ee maanta. Waddankan yar ee lagu dhex beeray Carabta ayaa cabsi ka qabaan dalalka Carabta sirdoonkeeda, iyadoo adduunkana kaga jirta kaalinta koowaad xagga qiimaynta sirdoon, tayo ahaan, warbixinno la isku halayn karo, iyo weerarro lagu qaada madax badan oo caalamka kadibna lagu qaarajiyey. Dalkan yar siduu ku noqday awoodda sirdoon ee caalamka ayaa ku soo koobaynaa muuqaalkeena maanta. Dalkan wuxuu awooddiisa iskugu geeyaa sirdoonka asagoo ku bixiya qarash badan. Intaasi waxa uu dheer inay dadkooda ku dhiirigeliyaan inay yihiin awoodda dunida sirdoon ee maanta, iyagoo ku horudsiiya guulaha sirdoon ay ka gaareen dagaallo ay la galeen dalalka Carabta. Maalinta sirdoonka, qoysaska Israa'iil waxay ku shiraan amphitheater, halkaasi oo ku yaal madaxaf laga helayo farsamooyin iyo aaladihii loo adeegsaday sirdoonka, kuwaas oo ay ka mid yihiin gudbiye ku dhex jira kaawiyaha dharka, makarafoon ku dhex jira weelka qaxwada, qad qarsoon oo ku dhex jira dhalada barafuunka, aalad duubis ee duubtay wadahadalkii qarsoodiga ahaa ee u dhexeeyey boqor Xuseen iyo madaxweyne Jamaal Cabdinaasir, kaasoo soo dedejiyey dagaalkii 6 maalmood ee ay dhex maray Carabta iyo Israa'iil, iyo qalabkii wireless-ka ahaa ee ay adeegsadeen Binti iyo Moshe Marzuuqi xilligii ay ka mid ahaayeen maamulka sirdoon ee Mossad ee dalka Masar, halkaasi oo ugu dambayn ay ku dhinteen xabsiyada Masar. Dalkan wuxuu ka faa'iidaystay beerlaxawsiga dadyowga caalamka kadib xasuuqii aan loo meeldayin ay u geysteen maamulkii ee uu horkacayay Hitler. Mossad waa awood sirdoon ee aan la xaqiri karin. Waxay u dhacaan sirta waddamada ugu awoodda badan caalamka. Turkiga ayaa ka mid ah dalalka marar badan fashiliya weerar sirdoon ay ku soo qaadeen Mossad. Turkiga oo asagana dal ah sirdoonkiisa aan la dheelsin karin, kana howlgala waddamo badan oo caalamka ah. Sanadkii la soo dhaafay keliya, sirdoonka Turkiga waxay fashiliyeen in ka badan 19 weerar, iyagoo qabtayna in ka badan 50 qof oo la shaqaynaya sirdoonka Israa'iil ee Mossad, kuwaasi oo ay ku jiraan arday wax ka barata dalka Turkiga.